muddadii xukuumaddan talada haysa waxay magac ahaan ahayd nabad iyo nolol taas magaca laga dheehan karay macaan iyo malab la muudsan doono balse mucaaradka waxay u ahayd nabar ay naxdin ka dambayso nabar halis ku ah muddada xil joogista ka fogeynta xilalka meertada magac dil maamus ridis iyo mararka qaarkood maxbuus ka dhigid balse mucaaradku waxaa nabarka kaga darnaa naxdinta dambaysa oo ah masaafurin xasaanad ka xayoobin xilka qaadis iyo in mucaaradku si kasta oo looga meero baarlamaanka soo socda ee doorashada 2021 xogteenna waxaynu ku daahrogaynaa qorshe diyaarsan oo dhammaystiran si gaarana loo baahiyey waana qorshaha baarlamaanka uga yaalla xukuumadda nabad iyo nolol ee ay doonayaan inay kaga saaraan xubno badan oo ka mid ah dadka ka aragtida duwan maalmaha muddaxileedka madaxweynaha dowladda federaalka ka dhiman ayaa ah kuwa mucjiso ku noqda baarlamaanka federaalka kuwaas oo 4 sano u ahaa gacanta midig ee fiilla Soomaaliya qorshaha la eebiyay ee maalgelintiisa muqdisho ka socoto ayaa in maqaawirta baarlamaanka miiska laga leexiyo waxaana seeftu qaadaysaa kutulada waaya arag anaa mudan abaalaawayaasha aan magacooda la xuso 4 baarlamaan oo kans waqtigiisu sii dhamaanaya hadda ku jiro waxaa golaha baarlamaanka ka dhex samaysmay kudlado isku danah kuwa macaashka ku saaxiiba iyo kuwa kadeed ku kulmiyo kuwa ugu magaca weyn waxaa lagu magacaabaa magaca macaashlayaasha aan mucaahadada lahayn dadka qaar ayaana ugu yeeraa abaalaawayaal waa koox ka kooban ilaa 40 mudane baarlamaan waxaana gudoomiye ku-xigeenka koobaad cabdiweli sheekh ibraahim muudey waxay dantu xiriirisaa ku-xigeenka labaad mahad cabdalla cawad mudanayaashan ayaa inta badan ka mid ah baarlamaankii dalka soo maray waxaana baarlamaanka dhexdiisa looga yaqaanaa kooxda karkarisa isbedelada oo ah in iyadu cidda ay taageerana mool walba guushu raacdo waxay masuugaana baarlamaanka lama mariyo si fudud mooshinka ay doonaan maalin ma dhaafo waa kudlada markasta xukunka joogta ayay maalgelin badan gelisaa haybad iyo magac saarta dhammaadka muddaxileenkana kala shaqaysa soo laabashadooda magacyada ugu caansan ee xubnaha kudladan ku midaysan waa muudey cawad maareeye caashakoos dhuxulow gaandi madoobe cosable goodax iyo jeesow kooxdan kuraasta daalisay nabad iyo nolol qaybtoodii 4 sano oo midabo badan ayay la qaateen balse markan seeftu ayaga ayay qaadaysaa waxaana socda wareegii ugu dambeeyay oo siyaasadda looga saari lahaa 20 sano oo ay daaliyeen kuraasta baarlamaanka kuraastooda ayaana durba xukuumadda ay ku lamnaayeen ay qoondaysay koox muddaba bannaanka ka eegaysay kooxdan si ay markan baarlamaanka uga saartaan kooxda labaad oo loogu magac daro anaa mudan waa xildhibaano dhalinyaro ah aqooniyahana dumar ku jiraan kooxdan waxay isu yaqaaneen anaa mudan waa kaadiriinta codka ku boobtay madaxweynaha jooga 4 sano muddaxileedkiisuna hadda uu sii dhammaanayo waxay xidhiidhiyaan dhalinyarada taageerta nabad iyo nolol waxayna faafiyaan halkudhagyada Soomaaliyada cusub waana awoodda qarsoon ee baarlamaanka ku joogta xukuumadda haddu taasi waxa ay shaqo isugu naanaysaan anaa mudan ayaa soo baxday balse mudnaanta ay sugayeen waxay noqoteen kuraastooda la dhaafiyo loona sharaxo taageerayaashii ay ababiyeen loona bixiyey anaa kaasii mudan kuraasta kooxda anaa mudan ayaa noqon doona kuwa ugu fudud ee lagu tartamo doorashada loo madlan yahay 50 cisho ee nagu soo wajahan isla markaana garab kama heli doonaan xubnaha anaa mudan maamul goboleedyada iyo musharaxiintaba kuraasta waxaa ugu caasan aadan isaaq siraaji sheekh nuur hilaal abtidoon iyo carabow kooxda waaya arag waa siyaasiin la macaashtay ama la soo darcabtay damu jadiid muddadii xukunka ay joogeen ee mucaaradid badan kala hortagay nabad iyo nolol falkastoo ay qabatana mucaaradii jiray ilaa tareenku soo gaaro dhismihii galmudug kalkaas oo magacani baxay waaya arag kooxdan waxaa laga soo gudbay maalmo adag waxay taageero u baahnaa siiyeen qoorqoorka galmudug ilaa markii dambe axmed cabdi kaariye ka bayray ballamihii ay tabiyeen mar kalena waaya arag dib xamar ugu urureen si cad ayay u ogyihiin kooxdan kabtanka uu xiran yahay dhagdheer mahad saabir iyo fiqina foolaadka u yihiin in tartan adag ka horeeyo
kuraastoodana bannaanyaal badan ay baylah u tahay. koox afraad ayaa jirta laguna naanayso kooxda looma ooyaan. waa koox aan ehel taageero haysan, dan siyaasadeed oo cad lahayn. kooxdani waxa ay kolkii hore ku soo heleen joogitaanka kursiga saxiixa odayga qoyska iyo jeebkooda, waxayna u badan tahay in goor hore hadda tareenka la weydaariyo oo dhib iyo shida la'aan ay sidaasi kaga baxaan baarlamaanka federaalka. baarlamaankan wakhtigiisu sii dhammaanayo waxaa loo isticmaalay ridistii guddoomiyahoodii brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari beddelkii koowaad, eryaddii xukuumaddii xasan cali khayre iyo hor istaaggii sharciyo badan. dad badani waxay u arkaan in markan la eriyo in ay tahay midhihii ay beerteen imcaan iyo khaladaadba kay u noqdaan. ilaa 70 xildhibaan ayaa qorshaysan in la dhaafiyo xildhibaanada kuraasta oo xukuumadda hadda joogta ay ku bixinayso wakhti iyo kharash inaysan soo laaban. waxay qaadayaan geedow haddii ay baydhay kugu jirin. geedow haddii aan daabkay kugu jirin ima goyseen. waxaana muuqata in hadda la eebiyo qorshaha kuraasta lagu dhaafinayo xubnahan oo siyaasiyiin badan u yaqaanaan kuwa sameeya madaxweynenimada doorashooyinku marka ay soo madlan yihiin.